waa qaybtii 15aad qisadii la magac baxday caashaqii hooyan waayey hormuud baa u soo dhacay. liibaan sida uu wax u rabo iyo sida ay gabdhaha u fikirayaan waa laba aan islahayn. damac hor leh ayaa ku dhashay, mana doonaya inuu arrinka soo afjaro, farahana uu kala baxo isagoo aan waxba gacanta ku dhigin. waxay hani iyo ifraax islahaayeen shardi fudud ayuu la iman doonaa, balse liibaan waa nin u barta inuu xoolo xaaraan ah cuno. wuxuu naftiisa ka dhaadhiciyey inuu rakaateeyo hani, wuxuuna dhahay, jaceylkiina inuu midho dhal yeesho anigaa kaa ballanqaadaya. waan ogahay Axmed kama maarantid, laakiin si riyadaada ay kuugu rumowdo marka hore waa inaad jeebkayga buuxisaa. liibaan wuxuu ku xujeeyey hani inay $1 siiso. hani cirka iyo dhulka ayaa la wareegay, muddo 2 daqiiqo ku simanna wax juuq ah waa laga waayey. ifraax oo ah gabar dhiig badan ayuu warkaasi aad u dhibay, islamarkaana dhiigga ayaa boqolka tegay. iyadoo xanaaq meesha u dambaysay maraysa ayay ugu jawaabtay, waryaa maxaad leedahay? yaad u malaysay hani markaad lacagta intaas la eg ku xujeynaysid? ma Bill Gates ayaa dhalay mise famil boqortooy ayay ka dhalatay? aniga waxba igama quseeyaan, waa hadday raali ku tahay, jaceylkeedana iyadaa badbaadsan karta, ayuu ku jawaabay liibaan. doofaar ileen weligii ma daahiro. hani waxay ka dharagsaneyd shakhsi nuuca uu yahay liibaan. waxay dantu ku qasabtay inay iska oggolaato shardiga liibaan. rajada keliya ay qabtay waxay ahayd inay dib isku helaan gacalyaheeda Axmed. intaa kadib liibaan iyo hani waxay ku ballameen inay beri ku kulmaan xawaaladda dahabshiil laanteeda ku taalla 6 Street oo ay hani macmiil la tahay. xilliga ballantana waa 12 duhurnimo. hani inta aysan bannaanka u bixin waxaa soo wacda walaasheed ka weyn Faadumo. salaan kadib Faadumo waxay hani u sheegtay inuu aabbaheed raadinayo oo uu kala hadli rabo arrin culus, iyo inay si dhaqsi leh guriga u timaado. qof ay meel u caddahay meeli ka madow. hani gebi ahaanba waxay walaasheed ka qarisay inay islii joogto, iyadoo markii ugu horraysa been ka dhaadhicisay. abbaaya, safarkii waan ka baaqday, diyaaraddii aan soo raaci lahaa ayaa cillad ku timid. waadna og tahay tikid kale iyo diyaarad kale waa dhib. 2 maalmood kadib ayaan imaanayaa ayay ku dhahday. Faadumo iyadoo hadalkaas la yaaban ayay markii dambe ka oggolaatay. waxaa la gaaray salaadii maqrib. ifraax waxay hani ka codsatay inay isku raacaan guri ay deggan tahay gabar saaxiibteed ah oo ku yaalla waddada jaamka ee xaafadda Islii. balse hani oo aan u baran inay u martido cid aysan aqoon ayaa ka soo horjeesatay, waxayna tidhi, abbaaya, wax kale ayaa naloo fahmayaa, inaga dhaaf. waxaan maqli jiray Kenya dadkeeda iyo derbigeeda midna lama dugaashado. ifraax intaas markay dhagaheeda ku soo dhaceen ayay qosashay. kadib hani iyo ifraax waxay tageen Hotel Shariif oo ku yaalla isla waddada jaamka si ay habeen qura u seexdaan. waa hotel ay joogaan shaqaale aad loogu carbiyey, kuna wacan soo dhoweynta iyo raaligelinta dadka u soo adeeg doonta. ifraax markay hoteelka gudaha u soo gashay ayay yara dawaqday. intay hani gacanta ka qabata ayay ku dhahday, walaalay, hoteelkan kama kacno, tabarteennana ma ahan, ee intaan gudaha taagannahay yaan lacagna lagu dalicine inaga keen meeshaan. hani oo aan maalmo badan dhoola caddayn xitaa lagu arkin baa ku qosashay, waxayna ku dhahday, ifraaxay, qofka kula socda haddaad ka warhayn lahayd sidaas uma aadan hadasheen. qol aan hal habeen qabsana iska dhaafe, dhismaha hoteelka uu ku yaallo oo idil ayaan iibsan karnaa. kadib waxay u gudbeen qaybta macmiilka ama receptionka, waxaana la siiyey qol ku sii jeeda waddada jaamka iyo dhismaha Alxaaq Plaza.
ifraax daal fara badan oo ay safarkii ka soo qaaday darteed jiif ayay la dhacday, halka hani uu habeenkan uga duwan yahay habeennadii hore ay soo martay. waxay ka fikiraysaa oo xusuus uurku taallo ah ku noqday maalmihii uu gacalyaheeda la joogay, siday amuuruhu isku beddeleen, xilkasla'aantii kala geysay iyada iyo jaceylkeedii, iyo siday noqon doonto falcelinta Axmed markay is arkaan. balse waxay soo xasuusatay maahmaah ay ayeeyadeed ka maqli jirtay oo ahayd, dantaada darin karkaranna waa loogu seexdaa, iyadoo nafteeda ku dejisay in wax kasta ay iska hagaagi doonaan. sidaas ayayna habeenkaas ku seexatay. qisadan la magac baxday caashiqii hoyan waaye hormuud baa u soo dhacay oo ah mid dhab ah, waxaa xuquuqdeeda leh, faafin kara, mas-uuliyaddeedana qaadi kara Axmed Cabdikariim waaye arag. beejkan ku taxnaaw oo like saar, qisadan oo sii socotana ka bogasho wacan. subaxii ku xigay Axmed waxaa laga soo saaray isbitaalka, waxayna dhaqaatiirtu u sheegeen inuu guriga isbuuc kale ku sii jiro inta nabarku ka bogsanayo. isagoo caafimaad qab dareemaya ayaa guriga lagu soo celiyey. salmaan oo taleefankiisa u haayay ayuu weydiiyey meesha ay hani ku dambaysay iyo inay isaga soo raadisay. salmaan abbow hani miyay kula soo hadashay mar kale ayuu dhahay. salmaan oo horay u damiyey taleefanka Axmed ayaa arkay inay markan lagama maarmaan tahay inuu runta u sheego Axmed. axmedow iska kay cafi, wax badan ayaan ka leexleexday runta oo aan been kugu maaweeliyey si aan fiyoobidaada u ilaaliyo, ayuu dhahay salmaan, isagoo sidoo kale u sheegay in hani ay guursatay iyo inay Soomaaliya aaday, wuxuuna caddeen ahaan u tusay fariintii taleefanka Axmed lagu soo diray. Axmed markuu intaa ogaaday aad ayuu u qaracmay, wuxuu ku sigtay inuu mar kale miyir daboolmo. isagoo markii horeba xanuun la saarnaa sariirta ayuu go'aansaday inuu soo xaqiijiyo guurka hani. wuxuu salmaan ka codsaday inuu u raaco guriga ay deggan tahay hani walaasheed Faadumo. xilligaas hooyo Nadiifo suuqa ayay ku maqneed. salmaan iyo Axmed oo dhaawac ahna waxay kireysteen gaari tagsi ah, waxayna aadeen xaafadda Sodsii. liibaan isagana waxaa maanta u soo carfaya cadad badan oo lacag ah oo uusan weligiis yeelan. 30 daqiiqo iyadoo ka dhiman tahay xilliga balanta ayuu hani wacay, iyadana waxay u sheegtay in loo diyaariyey lacagtii oo uu ku sugo xarunta dahabshiil ee waddada Sigiska. in yar kadib hani ayaa timid iyadoo la socota ifraax. liibaan oo xawaaladda bannaankeeda fadhiya ayay aragtay. ifraax ayaa u tagtay, waxayna ku dhahday, liibaan lacagtaada faraha ayaan kaa saaraynaa, laakiin hal shardi ayaan wadanaa. waa maxay ayuu dhahay liibaan. wiil tagsiile ah ayaan wacnay, arrintan isaga war uma haayo, waxaan rabnaa inaan aadno halka uu Axmed joogo, markaan aragno kadib ayaan ku siinaynaa lacagta, ee diyaar ma u tahay ayay weydiisay. liibaan markii horeba Axmed inuu u geeyo ma rabin. markuu arkay inuu xaalku cakirmay ayuu fikir bilaabay. in yar kadibna wuxuu go'aansaday inuu arrintan la kaashado tuugadii asxaabtiisa ahayd. ii kaadi Axmed ayaan la hadlayaa ayuu dhahay. meel dhowr mitir u jirta ayuu istaagay, wuxuuna wacay laqaaye, sida ay wax u jiraan ayuuna u sheegay. laqaayow $1 baa maanta shabaqa inoogu soo dhacday, ee meel aan isku aragnay ii sheeg ayuu liibaan dhahay. cabbaar ayay wada hadleen, waxayna ku heshiiyeen in hani iyo ifraax iyagoon la waxyeeleen lacagta keliya laga qaado, iyo in liibaan la siiyo saami dhan 60% lacagtaas la boobay. dhanka kale Axmed iyo salmaan waxay gaareen Sodsii, waxayna tageen guriga ay deggan tahay hani walaasheed Faadumo, balse xaalku ma ahan mid sahlan maanta. la soco qaybaha kale. qaybtanse maxay uga duwan tahay qaybihii hore ee sheekada?
hadduu jiro saaxiib qaas oo aad jeceshahay inuu qisadan la socdo had iyo jeer halkan uga wac oo meeshan dheh siina sheer gareeya.